السلام عليكم أصحابتنا قليل وحرجنا الكنا سود هذا قاعد فريق الفريق ملي ذيك جعلوا سود هذا أصحابي إن شاء الله حرجنا أنا عفمت قبتنا أنا كنا عفمت قبنا نبضينا أنا هنا الحمد لله ضدك صورة هنية ولكم باك هذا ما سنتين هذا ذيك يوم هذا أنا روتين أسوي لكن عاو روتين مجرو عاو حارة وهل إلى وين عنكره جوركا تمراك الله ضغط عاود نزا وقصنا يا واد دالي الله والله بلا اسمح لك كنت بلشده في عيا موقتين وحن معاني اسمح لك بلشده هلا بدي دب ملهاني ان دل نوسي فرماي وحوين معها يعني علم لنو زياده اسمح لك بلشده waxlay ka sii faa'iideena marka lagu yaaca wiilasheena ku yaacaano anaka lama la guursanaa maxaa gabdhaheena lama la guursanaa mar walbo wiilasha naftigooda maxaa mararka qaarkood inay dhimiyaan maho nabareejeya bo noo soo aara ya aniga wiilasha tumaroko waa taageeroya ya dadka kasoo horjeedo ay xanaaqin dumar layaal ii qabanin yahay hal igu qaato walaalayaalo faarax Soomaali wax badan oo nacay wax badan oo dhaheen ajaanib naagaha guursada fikrad qaldan wax qaldan ay ka aaminsanaayeen waxaa ku dhahay seetahin noocay jirin hay hadda waxa u jeedaa iyagoo boorsadoodii alaabtooda wato Maroko u sii cararaya xaadha abo khayr ma jiro xaalagaaga sheeg Maroko ii jeeg Maroko macaanka lagaaga sheeg ii jeeg baan naftige ya bismillah ramansi dadka loo caanayo le gabar ajaanib guursato ma arki karaa wiilasheen Soomaalida khayr Allah si ma ku taraxtay karo sababtoo faarax Soomaali wax ma dhigi kari my daddy aabaya marka faarax yani wiilasha Soomaalida ma cayn kara yani waxna ma dhihi kari ya ma ahna garbash xalaalan ku ridi lahaa wax badan ay nacayeen gabdhaha ajaanibta guursanayaan ha saan waaye kan waaye yani gabar walbo ajaanib guursanaysa waxa laga aaminsanaa wax qaldan anaga guurka calafka inuu yahay ma aaminsanin gabarta ajaanib waxa aaminsanahay inay gabar xun tahay aaminsanahay laakiin hadda Maroko ka dhaxday Maroko waxa lagu sheegay aniga hadda fahmi lahay hadda ma fahmin caaw dhan dood wadaag ku jirnay ani iyo gabdhaha saaxiibanaha dood wadaag oo waali aan ku jirnay gabdhaha oo walaalahay marna waa marna saaxiibadee waay hal gabadha wax iska soo jirtaa aniyay gabdhaha Maroko raqiisa lagu guursanooyaa $150 lagu biilooyaa adiga waxa ii tirisay waana baaba wax ma ku sheegahay aniga waxa wadid ma yeelay ana sababto dadkeena waxay noqdeen qof markuu ajaanib aaday qofkaas inuu xun yahay ka dhaadhacsan ama yani cilad inuu leeyahay xun yahay cilad inuu leeyahay ka dhaadhacsan qofkaas uu fiican yahay calafa u geey ma naga dhaadhacsan waxa naga dhaadhacsan kaliya qofkaas inuu cilad leeyahay cilada loo yeelaa baanaka caadadeena waa ceebteena ma ahan hada Soomaalidaan marka abayan doodna waxaan ku dhahay abaayo waxa ku weydiinaha ku dhahay wiilal Soomaali gabdho Arab guursadeen wadankan Turkiga aan joogo arooskoodana ani shaahid ka ahay aan tagay aan ku soo ciyaaray gabdhaha Arabta xataa arooskooda markii la aadayo nin inaag ma isku dar sida anaka Soomaalideena ma aha nimankeena ay masrax yaacaan waa la isqaabina sil roo libsana naagaleena waay dar aroosan ka tagay hal xataa ma ahan gabdhaha Arabta aniga gabdha saaxiibade Arab waay gabadha ugu jeclahay waxa waay nus Soomaali nus Arab waay walaashay saaxiibtay everything ita wax walba ita fahamtay marka gabdha Arab oo wadankan lagu guursado waa arkay oo wiilasheen Soomaalida guursadeen arkay marka abaayo markaan doodeen waxa ku dhahay abaayo marka waaleen waxa ku dhahay abaayo wiilasha Soomaalida inta imaadeen sax gabdha oo Arab oo Yemen ay guursadeen gabdhahana hadda Maroko waay gabdhaha Arabta oo Yemen markay guursanayeen dhahay 2000 may ku guursadeen dhahay bishina $150 may ku biilayeen ilaaha kugu dhaariyay yani iyadana way taqaanaa gabdhahaas hadda aniga sheegay anigana waa aqaana saa aniga iyada isku ka seeno aan isku ka seena wax walbana gabdhahaas
lacagta lagu biilaayay gabdho Soomaali oo wiilal Soomaali qabaan oo ilmo haystaan lacagta lagu biilaayay ka badanaa lagu biilaayay iyagoo ilmo haysan lacagta doonashadooda iyo dahabkooda iyo guryaha loo dhigana lacag tiro badanaa laga baxshay marka waxaan dhahay hadda Faarax Morocco markuu noqoy ya gabdhaha Morocco raqiis may noqdeen dhahay gabdhaha Soomaaliland dheeman may noqdeen naag walba horta meesha is dhigta waa Soomaali waxay dhahdaa lax meesha is dhigta lagu gooracay Soomaali dhahda waxaan dhahay marka wiilasha Soomaaliya deeto Morocco ee noqdeen ya cayma loo raadiyay gabdhaha Morocco dhahay malacayna ay gabdhaha Morocco raqiis waay $500 inay lagu biil raali ka yihiin inay ijaga caawinaysa iiga qosoltiinaysa waxaan dhahay wax cilad kala sheegana gabdhaha ay guursanayeen gabdha maan garoobo waaye gabdha garoobo la siinoya walaa waxaan abaayo wax aqli galay ii sheegana wiilasha oo Morocco gabdhaha lagu soo daro ay guursanayaan waxa waaye bismiyana garoobo ajaanibka guursanayeen gabdhaha Soomaalida totally ku soo wada qabanaa nimanka aan guursanayno waa xun yihiin oo saan waaye inuu jirin halo malaya duq waaye wax laga sheegaa ninkii oo fiican oo laxadiisa u dhameystiran xataa laxad baa laga qaadaa marka Morocco gabdha raqiis heleen gabdho oo garoobe heleen waxaas inta la iska dhaafo cilada wax walbaba cilada loo yeelin oo wiilkan hadduu raadsadana shakhsiyadiisa ani waa taageera abuu soo dhawow aniga inaad dadka qabo maleysay ma jirto abaa noo aara ajaanibta guursada bal idinkana fiiriye bal ajaanibta laakiin is adkeey walaalayaal waa naceebeenina saddex guursashaal ma jiro maxaa la dhihi jiray gabadha guriga hooseeda ka saacid haye haddii ilmo lagu dhalo ilmaha yacni ogow haddaa imaatid shaqada ka imaatid kursiga meeshaas ha fadhiisan telefoon hala fadhiisanin maanta xabiibti maxaa sameysay maxaa qabatay xaalka yacni jawiga saan wuu ka bedelnaana wiilasheena Soomaalida meelay ka dhadaysan yihiin way jiraan meelaan ka ciladaysan oo ka aralannahay oo ka aradanahay way jiraan ka aradanahay ma jiro carabka way weynaada caaw igu qaata caaw carabka ay weynaada igu qaata adkaata qaali sheekada maxaa ahay ajaanibta hal aad wiilasha Soomaalida anigu waa rabaa inay aadaan ee soo arkaan naagaha ajaanibta abooyaal taga horta soo arkaa laakiin is adkeeya idin dhihi lahaa aniga meesha tagaysiin is adkeeya 3 guursi 4 inaa guursadaa rabaa iyo habeenka daa gurigeyga imaado iyo telefoonaan gala iyo social media gala iyo baby maanta maxaa soo qabatay iyo maxaa yeeshay naagta guriga maxaa ka qabatay iyo maxaa la wareysanayay ma saacidaayay meesha u fadhiisana raashinkeegiyo diyaarsanaa fadhiga lagu keenaa raashinkii aan iga qaada ya waxaas ma jirayso gabdhaha Soomaalida nimanka badaraanka ay ka badiyeen nimanka Soomaalida badaraanka ay ka badiyeen marka oo Faaraxow anaga wax badan waa nacaysay anaga nimanka ajaanibta abuu nimca ku heesanaa nimco beema la isku sheega nimca ku heesanaa waxaa ku dhahay waana la saacidaa alxamdulillaah ilmaha nagala saacidaa maanta markii la soo ag fadhiisto waa la sheekistaa waa la kaftamaa waa la qoslaa qofba gafur inta hadii la isdagaalo waa la isku imaadaa haye si tartiib loo xaliyaa waxa gafur nin taagayo ma arkinbo aniga alxamdulillaah nin gafur taagayo ma qab ilaahayna ma tusi alxamdulillaah marka gafur hanugu taagin naag kala baat I love you baat hanugu noqonin ya walaalo shaaxa markay kuu keento adi markaa shaax soo shubanaysid ama kafee soo shubanaysid bakeeriga kala adoo wadata iska keen ya nolosha waxaa waa mushtarak waa nolosha waxaa waa yani ma jirta aniga shukumaanka musqusho iga sii horeena quraacda miiska ii saarnaane cashada miiska ii saarnaane waxaas ma jiro abuu ya Faaraxow soo yaaca adkaata qaali sheekada ya adkaata kaalay soo gala nagu soo cariiriye badda raaxadaaba naga qaateen caayada adduunka wiilasha Soomaalida ku dhaawacayba aaminsan gabadha ajaanibka raacdo inay wax ka qaldan yihiin ama ninka cilad laga sheegay ama gabadha cilad laga sheegay hadda wiilasha Soomaaliya Morocco ala bilaabay in cilad laga sheego gabdhihiyaaba cilad laga sheego gabdho garoobay guursanooyaan gabdha anaga warkeen waa cad ya Soomaaliya daanaan marka dumar laano idinkana is adkeeya ninka baxa Allah u naxariista si macsalaamee ka badan yani Faarax kala ka badan ka fiican helay
hortiina hor allahe gadaashiinana qeyr hortiinana qeyr abba waxaa dhihi karaa dumar laan oo hay ugu kicinayaa laakiin aniga waxaa waa wiilasha Soomaalida xarasha u haya macaan kiri meel inta usoo fadhiisto waxna ma dhihi kari caay raaxada waxaa la yidhi shuubada shuubay guursanaysaa kale aw mushrikatan waa qur'aanka waay magarad hadda marka haddaad aragtid naag Soomaali oo ajnabi la carartay shuuba ahayd shuubadu markaa shuubo kale Soomaali haday weydo mushrikii bay gelaysaa gaal marka waxbaa la yaabina kuwa idin anfacaya ma markii horeba looma qorinba inay ummadan ku dhex jirto inay baxdaan loogu talagalay berri hadduu soo cayreena waswaasa ku dhacay nimankan ma rabaan wax weyn oo future kama rabaan waa some days way soo noqonaysaa meeshaanay soo fariisanaysaa faarax lama hadlaayo ay bilaabaysaa faarax waasaan gabdhihii yaryara ee nadiifta ahaa ee xalaasha ahaa ay rabtaa inay haddana hadhow wasaqayso iyada hadda saana shuubada wejigeeda la tuso hoos idin soo saari doonaa qof weyn oon xishooneynin intoo meel iisoo fadhiistay shuuba idhahaayo shuuba igu caynaayo ya kaas Soomaaliya nimanka Soomaaliya oo sumcadda uga dheelabo marka intaa meel usoo fadhiistana macaynaayi hadduu asaga garaadkiisa siinin aabahay ka weyn inuu inta meel iisoo fadhiisto ya gabdho dhali karo aniga keligay ma isoo caynaa xataa gabdho badan oo caynaayo jiro gabdho dhali karo caynayo inta meel usoo fadhiisto shuuba dhahay nin qof weyn waayaan maanta hadduu wiil yar ahaana dhalinyaranimo u geysaa dhihi lahaa qof yar waaye da yar waaye haniye dhalinyaranimo xilligiisii ku jira ha iska caytama iska dhaaf aan dhihi lahaa laakiin waa qof weyn nin weyn yacni 60 ku dhow 70 inta meel soo fadhiista dadka caynaa waxaa maqli jira afax cun xisho aa maqli jira marka afaaraha xarsha u haya waxa aadaano gabdhaha Soomaaliyeed lama laacayna gabdhaha Soomaaliyeed ajaanibta guursadeen lama laacayna faaraha Soomaaliga ajaanibka aadane oo tumrook u socdane hala caayo isagana aragnaa marka ninka isoo caayo show isoo dhahay aniga shownimo igu soo caay ya asagana bal arka wiilasha Soomaalida waxa u safraya tumrook wuxuu ka soo sheegi doonaa arkaba qandhacan dhaweyn nimanka Soomaaliya sharafta ka qaada sharafta Allah ka qaada dheh marka aniga waa soo dhaweynayaa shakhsi ahaan kahani baaka ahaan wiilasheena ya quruxda badan leh wiilal fool xumaa naga baxeen waligiina dhigi jirteen wiilal fool xumaa naga baxeen naaga fool xumaa naga baxay taas way fool xunta haddii ajaanib naga aadiya aroosi la waligiina dhigi jirteen waligiina dhaa qaybta qaraarka qaybta qaraarka idinka keenayo faaraxyada inta soo qaadeen TikTok alla TikTok caawisa oo qoslaa u fuuraya wallahi bila feeraha xanuuna ku dhaa intay wiilasha soo qaateen mid fool xunaa naga bax alla dumar la waxay dhigayaan ku dhaa waaw dumar aanu isdajiye laakiin aniga waxaa rabaa lafa gari iyo kale isku jabiya ma dhigi jirno faaraxyada Soomaaliya iyo kana isku jabiya rabaayahay yaa qalad lii fahmay sababtoo kabo 90 gabdhaha Soomaalida ajaanibta guursaday ataagaana caayaan marka waxaa rabaa wiilasha Soomaalida ka dhaxdooda ma aragtay inaa isku jabiyo oo ka dhaxdooda hadda ka tafato bal ha is caayana aragnay 90 gabdhaha ajaanibta guursadaan kaliya waxay u saaran yihiin bal hadda wiilasha oo ajaanibta guursadeen ha saarnaadana aragna marka waa kaayahay soo dhawaada Morocco soo dhawaada wiil ajaanib guursanaya hadaa aragtiin iisoo sheega ama TikTok-gayga ama Instagram-kayga inta idin soo saara iisoo sheega ana aadaya arooskiisa ka soo dhaxnay kiyaaya ku dhahay waaba soo dhaweynaa maanta laga bilaabo faarax ajaanib guursanayo walakum sheekadaas ay igu baxdaa yaa maxaa hal yirin sheekadaas sheeka igu baxdo maxaa hal dhahay gabar Soomaaliyeed bisleema la nagal aroosa gabdhihiin lama la aroosa wiilasheenana ha aroosaano isdhaxgalka bulshada way fiican tahay in la isdhaxgal fiican tahay isdhaxgalka bulshada waxyaabo badan laga faa'iido indho la noo sii furmaayo Soomaaliya hadda waa caalam tagay wax hadda loogu horeeyo ajaanib guursashadana
wax hadda noogu horeysa ma ahanoo dadkeeni waagi dowladda jiro way isguursan jireen ama carab ha isguursadaano ama ha isguursadaano Italian ma li jira Talyaaniga ha isguursadaano un dhaxgalka bulshada waagaas oo fiicnaa jira dad ilbaxaan ahayn hadda dad waxaa noqon ajaanib hadii la maqlab cudur waxaan ugu soo dagay nooc kala ba asaga dhan marka isdhaxgalka bulshada waa inoo bataa si looga tago qabiil iyo balaayadiisi iyo in looga tago isdhaxgalka bulshada inoo bato waayo qof markuu wadan kale ku lifaaqo ma aragtay waxaa laga tagaa marka waxaa laga tagaa qabyaalada laga tagaa caaw kaftan iyo waxaa waaye yaa hal igu qaato gabadhiin waaye maxaa sameynahay sababtoo faaraxaa ku dhahay faaraxow yaa magacaas wiil Soomaaliyeed waxna ma dhihi kare raaxadeena caay iiga qaadeen wayse ii caynayaan shaqsiyadeeda aaday ii caayeen aadayna ii ataageen marka hadda faarax naag guursada ajaanib aniga waa rabaa waa ku farxaa wallaahi bilaa waa ku farxaa wiilasheena faarax Soomaaliyaasheena wiilasheena quruxda badan wiilasheena maasha Allah yaa is adkee laakiin walaalayaal naag kalan raadiya iyo ilaa afar ii baneeyo ilaa afar oo ku baneeyo laakiin hala kaaga qeyr badan oo ku yiri maadaama tumrook aadab halkaaga ilaa ku barakeeyo meeshaad halkaaga ku barakeeyso gabdheena Soomaalida sa bahdilaysiin u dayacaysiin ya bal aragna bal hadda Marookina u dayaci kartiin oo bahdili kartiin oo aflagaadeen kartiin ayna aragno kuwa gabdhaha ajaanibkana soo caan jiray oo haba gabar ajaanib markay raacdaba oo kaan kare inuu qabo soo dhigi jireen iyagana waxaa idin dhaha bal faaraxyaasha hadda Marooka aadayaan tumrook oo ku soo aroosayaan idinkana bal hani la arka bal commentigiisa oo siin hani la arkabo gabdhaha Soomaaliyeed waa arkay sida sharafta leh wiilasha Soomaalida ay u soo dhaweynayaan ee u dhahayaan keep going ku socda guursada ee u dhahayaan waa arkay marka dumar laano naga adkeeya baasha aniga idinkaan ila safanaa laakiin faarax markuu naag ajaanib guursado baalaha naga rifi jirin bal hadda iyaga dhaxdooda faaraxyada ha israfaana bal aragna ama ha ku taageeraano ama ha ku ataagaano marka isla socosho wanaagsan waa isla arki doonaa marka aniga caawa fiidiyogeyga inta waa igu qaatayahe igu qaata caawa fiidiyogan faaraxa ugu talagalay faaraxyada gabdhaha ajaanib taabo u maleeyaan gabar ajaanib nin hadeeba raacadabo anaka inaaba qiimo laheenoo sharaf laheenoo sumcad xun nahay naga dhigayaan hadda idinka markaa Marooka aadiin gabdhahaas ku doonanaysiin hantidaas iyo sharaftaas iyo adduunkaas ku doonanaysiin yaa adaabta u dhaqan laheedeen idinkaga fadhiyaa faaraxow faarax quruxow yaa waan ku salaama ii soo dhowno ku dhaafaa badda waa lagu soo hoowanayaa ma ahayd naagta waxay dhigaysay riwaayadii oo hablayo had maad guursan doontaan riwaayadii inay ahayd oo maleena marka badda waa lagu soo hoowanayaa aniga marka waa fadhiyaa waa fiirsan hayaa sheekada waan fiirsan hayaa adkaa taqaani sheekada soo socda faaraxo waa ku salaam khayr iyo caafimaad idinkaga tegay bye bye dadka samahay saaxiibkay waxaa idin leeyahay jeclahay wallahi bye bye